السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بان idin weydiinayaa hadduu ilaahay caqliya xikmad uu ku siiyey oo aad arkaysid dadka la nooshahay inay duruuf adag ay ku nool yihiin, awood ma u leedahay inaad dadkaaga aad ka saartid iyo degaankaaga duruufta adag ay ku nool yihiin iyo jahliga iyo dulmiga ka jira? awood ma u leedahay inaad beddeshid? awood ma u leedahay inaad noqotid isbeddelka kusoo kordhaya bulshadiisa ee ka saaraya mugdiga khuraafaadka iyo jahligay ku nool yihiin? awood ma u leedahay inaad noqotid shamciga u iftiimaya mugdiga waddada ay marayaan ee u hagi lahaa waddadii saxda ahayd? awood ma u leedahay inaad noqotid mucallimka khayrka dadka ee wanaagga faraya? ma noqon kartaa mucjisadda isbeddelka bulshadiisa kusoo kordhaya iyo qoyskiisa iyo xaafaddiisa iyo iskuulkiisa? awood ma u leedahay inaad noqotid kii dadka xayaadadooda badbaadinayay? awood ma u leedahay inaad qortid buug dadka maskaxdooda ka maydhaya wax kastoo khaldan oo ay aaminsan yihiin? awood ma u leedahay inaad albaab arsaaqada shabaabka aad u furtid iyo dhallinyarada iyo noloshooda inaad beddeshid? jawaabka waxa weeyaan qof kasta awoodu uu u leeyahy inuu isbeddelka noqdo oo dadka uu la nool yahay iyo bulshadiisaba inuu noloshooda beddelo oo dhinacii saxda weliba inuu u beddelo. waxaan tusaale idiin soo qaadayaa nin la yidhaaho abulbarakaat albarbari. ninkaas dal buu imi, aanu u dhalanin, weliba luqadood aanu ku hadlin, haddana wuxuu noqday sababba u noqday inay dalkaasoo dhan iyo shacabkaasoo dhan inay diinta islaamka ay galaan 900 sannadood ka hor, oo ilaa iminka inuu dalkaas diinta islaamka uu noqdo diinta rasmiga iyo dastuurkoodana uu noqdo islaamka. ma rumaysanaysaan ninkaas ayaa awood u yeeshay inuu shacab dhan uu ka saaro mugdiga jahliga iyo khuraafaadka iyo faqriga ku jireen, oo albaabada arsaaqda iyo naxariista inuu u furo. ninkaas baa awood u yeeshay keligii inuu noqdo kii badbaadinayay caruurtooda iyo hablahooda oo si dulmiya xaqdarro ah u dhiman jiray. ilaahi subxaana wa tacaala suurat almaa-ida wuxuu idhi waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican. sadaqa allahu alcadiim. kii naf badbaadiya wuxuu la mid yahay kii dadkoo dhan badbaadiyey, khaasatan qofka dadka soo sabab u noqda hidaayadooda ee naarta ka badbaadiyay iyo kufriga ee islaamka nuurkiisa iyo wanaagiisa soo geliya. dalkan uu sabab u ahaa abulbarakaat inuu diinta islaamka uu geliyo waxa weeyaan dalka maldiv. dadka aana garanayn maldiv waxa weeyaan dal ku yaala indian oceanka oo ka kooban 1200 oo jasiiradooda isku xidhan, waxaana u dhow yihiin dalka hindiya iyo sri lanka. 1200 jasiiradood dadku waxay ku nool yihiin 200 jasiiradood ayay ku nool yihiin. 2019 tirada dadka deganaa dalka waxay noqotay 530,000 oo qof. nidaamka xukmiga waxa weeyaan jumhuuri. madaxweynahooda maldiv waxaa doorta baarlamaanka. dadka codeeyana waxa weeyaan dadka muslimkuun ayuunbaa codeeya. dastuurkeeda wuxuu leeyahay wayna dadkuna muslimiin noqdaan. qofka xataa doonaya inuu qaato baasboor maldivi waa inuu noqdo qof muslima. shacbigeedu waa shacab diinta islaamka jecel. waxaa lagu leeyahay 8% dadka ku nool maldiv waa muslim. dadka xalkaa ku nool dhaqanka islaamka ilaaliyaan iyo shuruucda islaamka ay xoog u ilaaliyaan. waxaad arkaysaa dumarkii oo xijaaban, dadku eedaanka way ixtiraamaan, salaada masaajidka lagu tukadaa. waxaad arkaysaa ramadaanka meel kastaiyo hudheeladiiyo xidhan, qofka lagu qabto isagoo wax cunayana waa la xidhaa. xalkaa dadka waxa ilaalisa hay-at alamri bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar oo ilaalinaysa dadku inay ku dhaqmayaan diinta islaamka. ma rumaysanaysaan madaxweynaha maldiv isagaa salaada jumcadda khudbadda soo jeediya oo dadka salaada tujiya. dakhligeedu wuxuu ka soo galaa iyo dhaqaaleedu wuxuu ka soo galaa kulumaysiga. talabaad dalxiiska dalka maldiv 2007 dadka dalxiis u imi maldiv waxay noqdeen in ka badan 8 milyan qof.
haddana iyaku dadku sida ugu badan tahay shuruuc adag bay ku xidhaan dadka dalxiiska dalkooda usoo booqda. horta marka ugu horeysa 84 jasiiradood bay xidheen ay u diyaariyeen dadka dalxiis u imanaya. lama ogola Maldives in khamri la cabo, xataa dadka dalxiis u imaadee gaalada ah lama ogola khamriga inay cabaan. dadka halkaa imanaya dalxiis waa inay dhaqankii islaamka iyo dharkii islaamka ay ilaaliyaan. xataa dadka dalxiis u imaada Maldives lama ogola in jasiiradaha kale dadka muslimku ay ku nool yihiin inay soo booqdaan haddaanay dhaqankii islaamka iyo dharkii islaamka inaanay ilaalinin. nin la yidhaaha ibn batuuta ayaa buu qoray. ninkaas waxaa nin muslima oo 40 dowladood soo booqday. wuxuu safar ku jiray 27 sannadood. wuxuu dhintay 1368 miilaadiga ayuu dhintay. buu qoray la yidhaha tuxfatu naadiri fi gharaa'ib alamsaar wa cajaa'ib alasfaar. wuxuu ka hadlayay dalka Maldives iyo dalkaas dadka ku nool dhaqankooda. waxaanuu ka sheekeeyey siduu diinta islaamka u galay Maldives, waana sheeke aad u cajiiba oo caqliga aana galaynin. ninkaas wuxuu ku leeyahay ibn batuuta wuxuu ku leeyahay uu ka sheekeynaya dhaqanka dalka Maldives dadka ku nool. wuxuu ku leeyahay marka ugu horeysa waa dad yaryar oo xajmigooda uu yaryo dhuudhuuban. hubka weyn ay haysteen wuxuu ahaa ducada. waxaa dad ducadooda la aqbali jiray oo diin leh oo salaax leh. weligood dagaal may gelin, cidna lamay dagaalamin dalalka u dhow. wuxuu ku leeyahay xataa dalalka u dhow way ka baqi jireen inay soo weeraraan ama wax ka xadaan. sababta waxa weeyaan waxay aaminsanaayeen ina dadka ku nool Maldives ina ducadooda la aqbalo. waxay ka baqi jireen inay soo weeraraan oo ay habaaraan oo musiibad ku dhacdo. waxaanu sheegay wax aad u cajiiba. wuxuu ku leeyahay maalin anigoo dalka Maldives jooga ayuunba waxaan arkay xeebtii badda dadkii oo dhan u soo baxay oo taagan. waa caruur, waa dumar, waa rag. waxay sameeyeen buuggii qur-aankii madaxa saarteen, qur-aankii baa la akhriyayay. qaarna way kabirayeen, allahu akbar bay lahaayeen. waxaan arkay buu ku leeyahay dooni weyn oo halkaa ka soo socota badda oo wada laydhada oo wada iftiima. dadkiiba qur-aankii haddana xoog usii akhriyo codkoodii dheeraysiiyey ilaa intay doonidii dib u laabatay oo ay carartay. dadkiiban weydiiye waxaan ku yidhi waa maxay doonidan, waa maxay dhaqankan aleedin cajiibkee inta xeebta badda istaagtaan oo qur-aan akhriyaysaan. sheeke cajiib ayay uga sheekeen. waxay ku idhaaheen waxa jira shaydaan badda ku nool. inta badan dadku say u garanayaan jasiiradaha ama badda shadaadintu ku badantay. shaydaankaas ayaa wuxuu ku leeyihiin bil kasta kowdeeda wuxuu imaada isagoo korsan dooni weyn oo wada laydha oo wada iftiina. intuu imaado ayaa wuxuu soo galaa jasiiradahayaga. markaasuu ku fasahaadaa, guryuhuu jajabiyaa, cuntaduu naga cunaa, dadkuu dilaa. wuxuu ku leeyahay in badan markan dhibta aan ku jirnay ayaa hortana waxay cuqaashayadu ay go-aan qaateen inay shaydaanka iska maslaxaan. waxay go-aan qaateen inay hadiyad siiyaan. hadiyadaasna waxay noqotay inan. xaafad ka mid a xaafadda magaalada ayaa inan laga soo qaadaya. inta la qurxiyba bahalka shaydaanka loo geynaya. markaasaa markuu cuno ayaa bishii inta ka hadhay uuna daynaya, noomana imanaayo, namana dhibaayo. marka inantaana saa loo dooranaya. waxaa la samaynayaa bakhtiyaal nasiib. bakhtiyaal nasiibka marka la sameeyo maalinba bil kastaba waxay ku dhacaysaa xaafad. xaafaday ku dhacdo ayaa inantaa la qaadaya oo bahalkaasa ama shaydaankaasa loo geynaya. intuu cuno habeenka ayaa subaxda meydkiida baa lasoo qaadaya, waa la gubaya, waa la aasaya. waxay ku leeyihiin markay uga sheekeen ibn batuuta sheekadan, waxay ku leeyihiin anakoo dhibtaa ku jirnay iyo halaagaas oo hablahayaga sidaa bil kasta u dhimanayaan si xaqdarro ah, ayaa wuxuu ku leeyihiin maalin maalmaha ka mida magaaladii waxaa soo galay nin layidhaaha abulbarakaat alberberi. ninkaasoo dooni korsan ayaa doonidiibaa ku jajabtay xeebta agteeda. hadhowtana oday kalluumaysiga ka shaqaynaya oo dooni yersita korsan ayaa wuxuu arkay ninka abulbarakaat ee qariibka. intuu ka naxay buu soo kaxeeyey, gurigiisii buu keenay. isagii islaantiisa ku noolay inantiisa. markuu gurigii keenay ayaa wuu daweeyey, cunto buu siiyey, muddad buu la noolaa, afkoodii luqadoodii buu bartay. wuxuu arkay maalintii dambe muddad ka bacda isagoo la nool islaantii odaygii ooyaya
oo xaafadii oo dhan iyo jaarkii oo dhan u imaadeen ay la ooyayaan. wuxuu ku yidhi maxaa idin helay? waxay ku yidhaan bishan bakhtiyaal nasiibka anigu nagu dhacay, inantayadaa la qaadaya oo shaydaankii la siinaya oo cunaaya. inantaasunban wax caruurana aan leenahay. intuu ka naxay ayaa wuxuu ku idhi bal aniga shaydaankan aad sheegaysaan ii geeya oo inantiiga dhiga. intay ka naxeen bay ku yidhan waar ka joog, wuu ku cunayaaye iska daa. wuxuu ku yidhi may, ii geeya. maxay sameeyeen? dharkii baa loo geliyey, inantaa la dili lahaa loo gelin lahaa. waxaanuu nasiib u lahaa wuxuu ahaa qof amrada, gadhyo shaarba muu lahayn. marka la diyaariyey ayaa habeenkii ciidankii boqorkaa imi, sidii baa lagu kaxeeyey. waxay geeyeen meel kaniisada wada asnaama oo halkaas inanta la geynaya mase lagaga cararaya. habeenkii ayuu imanaya shaydaankii doonidii korsan oo inantii sidii buu ku cunaya. inta la dhigay meeshii asnaamta ama kaniisada u ahayd oo lagaga cararay ayaa marka xilligii noqotay, shaydaankiiba is imi isagoo doonidii weyn korsan. wuu ka soo degay, wuu imi, wuxuu damcay qacantiis inuu dhaadhiciyo daaqad meesha taalla, uu qaato inantii isagoo moodayay meesha inay joogto. abulbarakaat baa markuu dareemay ayaa buxuu sameeyey, wuxuu bilaabay inuu akhriyo suurat yaasiin. hadhowtana suurado badan uu kor ka qaybsanaa ayuu akhriyey. markuu shaydaankii maqlay qur-aankii ayaa intuu qayliyey ayuu cararay. baddii buu ku cararay, doonidiisii buu ku dhacay, sidii buu baxsaday. subaxdii unbaa la imi oo laysidhi bal meydkiisii eeg abulbarakaat oo aasa. waxay arkeen isagoo fadhiyo qur-aankii akhriyaya. way yaabeen, maxaa dhacay bay ku idhaaheen. sheekadii buu uga sheekeeyey. waxay ku yidheen haddaba bisha dambena adigan ku geynaynaa. waaya buu yidhi. bishii dambena sidii oo kale bay sameeyeen, waa la geeyey. shaydaankii markuu imin buu qur-aankin buu akhriyey, sidii buu ku cararay. haddana bishii saddexaad baa sidii la sameeyey. markaasoo qur-aankii markuu akhriyey ayuu shaydaankii cararay. madaxweynihii dalka ama boqorkii baa loo sheegay. wuxuu yidhi bal ninkan igu yeedha. wuu u tegey. wuxuu ku yidhi sheekadan cajiibka oo maxay dadku ka sheekeynayaan, madhabbaa shaydaankii hablahaygii dhammeeyey ayaa markuu ku imaadad ku akhridid hadalkanaad akhriyaysid buu cararaa. wuxuu ugu jawaabay abulbarakaat. wuxuu ku idhi shaydaankan wuu idin addoonsaday. hubka qudha ay iskaga celin kartaana waxa weeyaan qur-aanka iyo diinta islaamka. boqorkii baa yaabay. magaciisuna waxaa la odhan jiray shanwarza. shanwarza wuxuu ku yidhi waa maxay qur-aanku, waa maxay diinta islaamku, bal nooga sheekee. sidii buu uga sheekeeyey boqorkii. shanwarza halkiiba ku muslimay. jasiiradihii oo dhan ee jaarkay ahaayeen markay ogaadeen kulligood diinta islaamkay galeen. asnaamtii baa la burburiyey. abulbarakaat maaldiif buu iska joogay. dadkiibuu qur-aankii baray, diintii islaamku baray, madhabkii shaaficigu markaa uu haystay ayuu ku faafiyey dalka. iminka qofka soo booqda dalka maaldiif wuxuu arkaya masaajid weyn oo la yidhaaho masjid abulbarakaat albarberi. boodh weyn baa ku dhajisan. boodhka waxaa ku qoran xalkanuu ku muslimay boqorkii shanwarza. waxaana sabab u ahaa diinta islaamka inuu galo abulbarakaat albarberi. shacabka maaldiif wuxuu diinta islaamka u galay 1153 miilaadiya. qarnigii 7 waxaa ka dambeysay iminka 900 oo sannadood. waa maxay cibradda ama xikmadan ka qaadanayno sheekadan aad u cajiibka? ta koobaad waxa weeyaan subxaanahu watacaala wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaani raxiim casa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum. sadaqa allahu alcadiim. marar fara badan baa jirta waxyaaba aad sharaysanaysid, aad moodaysid inuu shar yahay, haddana khayr iyo naxariis baa ku jirta. markii doonidii abulbarakaat ay burburtay, isagoo xeebta maaldiif jooga, kolleyba way dhibto, karaahiyad bay ku ahayd inay jajabto doonidiisu. laakiin maxaa ka dambeeyey? waxa uu karaahidaystay. waxaa ka dambeysay khayr iyo fatx iyo wanaag iyo sadaqaad jaariya. ilaa maanta qof kasta oo dalka maaldiif jooga oo tukada ama qur-aan akhriya ama aadaanka laga eedaamo masaajid kastoo ku yaala maaldiif, waxay ku dhacaysaa miisaanka xasanaadkiisa ilaa yowmi alqiyaama. bal ka warama ajarka intaa leeg uu helay abulbarakaat albarberi. ta labaad xikmadda kalen ka qaadanayna waxa weeyaan, waxaad isweydiinaysaa kolleyba waa maxay sababtu ilaahay u doortay abulbarakaat.
waa maxay sababtuu sharaftan iyo kaalintan weyn u helay waxaanu ajara ilaa qiyaamaha u socda? talow ma wuxuu ahaa qof sadaqad badan? talow ma wuxuu ahaa qof baari waalidkiisa oo aabbihii hooyadii u roonaa? talow ma dadku caawin jiray, u gurman jiray? kolleyba kaalintan weyn wuxuu ku helay wax fara badan iyo wanaag fara badan uu samayn jiray iyo ilaahay inuu u dhowaa iyo qalbi nadiifa. ta saddexaad waxa weeyaan, markasta waxaad isku dayda inaad noqotid shamcigii ama cadceedda u iftiimaysa dadkaad la nooshahay ee noloshooda iyo dhibaatadii ku jiraan iyo xumaantii ku jiraan ka saari lahaa. kii dadka wanaagga u sheegayay, kii dadka caawinayay, kii dadka u gurmanayay, markasta noqo. waxaa xasuusataan markasta haddaad wanaag ku jirtid iyo khayr badan aad ku jirtid inuu ilaahay kolleyba meel sare iyo kaalin sare oo dadku aanay gaadhayn inuu kugu siinayo. waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.